uu sugayso waa la kala horeynayaa ilaahay waxaan uga bareenaa in ilaahay jannada firdawsa geeyo in ilaahay kitaabkiisa midigta uga dhiibaan ilaahay uga bareenaa dhammaanteedna in ilaahay inuu ka daba naxariisto oo wada aynu wada sugayno halkan waxaan tacsi rabaa inaan ka gaarsiiyo salaadiinta iyo ogaasyada iyo boqorradu raalli bay iga ahaanayaan aniga waxaa i soo diray inaan ummadda uga tacsideeyo anigoo ku hadlaya afkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu gobolka Sool oo dhan inuu tacsidaa soo gaarsiiyo aan kaga wakiilahay madaxweynuhuna ay soo faray waxaan rabaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee gobolka Sool ku nool inay tacsidaa iga gudoomaan oo tii ehelka hoose ee qoyskiisu ay gudoomaan oo tii gaarka cidda uu xukumay ay gudoomaan annagoo xalay tooshiiraanu ku qabanay aan toos anigu uga soo baxay halkan oo layga soo diray xalay oo dhanna waa soo guureynayay waxaa la amray dhammaan haddii ay jiraan xoogaa in ay u fasaxan yihiin cid alla ciddii imaanaysa Somaliland ee tacsidaa ka soo qaybgelaysa anigoo odayana sidaasaa laygu soo diray gobolkan arrintaasay haysteen qolada Puntland aan walaalaha nahay marar badan baa dhici jirtay waxaanu ka soo qayb galnay iyagu magaalada haysta garaad Ismaaciil waxaanu ka soo qayb galnay garaad Cabdiqani sidaas la eeg baanu ugaas Cabdullaahi sidaas la eeg baa la isugu gartay in dhan kastaaba tacsida ciddii imanaysa ay timaado oo wax caadi ah xoogaa difference siyaasadeed way iska jiri karaa laakiin marka ay tanoo kale timaado cid waliba xaq bay u leedahay inay goobta timaado oo tacsida ka qayb gasho marka annagu ka xukuumad ahaan sidaasaanu u gaarnay go'aanka oo u furay kii haatan yimidna dee waajibaadkii buu fuliyey kii haatan soo bixi waayana dadka soo bixi kari waayey buu la mid yahay waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun garaad cali xasan garaad cali buraale xasan shiil ilaahay waxaan uga bareenaa in ilaahay jannada firdawsa geeyo dhammaanteedna ilaahay waxaan ka bareenaa inuu inoo ka